ummadda burburkeedu wakhtiyadu bilaabmay inay ka mid tahay markay mas-uuliyadda u qabtaan ummadda xafna min almutrafiin ama koox yar oo nimcaysata oo fasaqa ah oo daalimiina amase mujrimiina iyo qaacida saakina bulsho hurudda oo aan haba yaraatee joojin karin fasaadka kooxdaa yari waddo hadday labadaas shay is helaan ummaddaasi way halaagsantaa haddii dadka hoggaanka ummadda u hayaa iyagoo ay weecsamaan bulshaduna kalsoonidoodu ay lunto isla markaasi iyagoo ay ku adkaystaan meesha inay sii wadaan bulshaduna kalsoonida kuwaas ay ka lunto siduu isagu ku tafsiirinaya uu leeyahay markaasi waxaa bilaabma dagaallada sokeeya iyo dadku inuu isku jabo waxaa aakhirka ka ratibma buu leeyahayna inay dadku intay baaba'aan akhlaaqiyaad cusub lala soo baxa buu leeyahay matalan toynbi oo ah mu'arikh reer galbeed ah daraasada falsafati taariikhna aad ugu fiican ayaa markuu isagu suquudka ama dumitaanka ummada ay dunto sharxayo wuxuu ku tafsiiraa 3 sababood baa ugu badan buu yidhaahdaa qiyaadada ama ummadda hoggaankeeda ama alaqaliya almuwajaha wuxuu ku tilmaamo kooxda yar ee dadka hoggaamisa wuxuu tilmaamta ayaa liidata buu yidhi oo dacfi ku dhaca markaasaa waxay isu beddeshaa buu yidhi sulta tacasufiya bulsha markay kobcaysa ama koraysa buu tilmaamaya kooxdaa yari aqaliya khallaaqa bay noqotaa buu leeyahy oo waxyaabaha taxadiyaadka ama waxyaabaha bulshada ka hor imanaya solution in badan u hela iskuna daya bulshada inay hore u qaadaan kuna guulaysta marxalada buu yidhi dumitaanka marka lagu sii socdana kooxdaasi ayaa ku guulaysan weyda buu leeyahy inay ummadda nooca kan u hoggaamiyaan dabeetana waxay isu beddelaan buu yidhi aqaliya musaytira koox yar oo sultada xoog ku haysato ilaashanaysa oo og sultada ilaashanaysa inaanay xaq u lahayn inay sii joogto isku dayda uun haatan hadday wax kala qaban kari weyday inaanay sultadu ka baxsan natiijada ka ratibantaa waxay noqotaa buu leeyahy in bulsho weyntuna ay nacdo oo aktariyadii ama dadka intii badnaana ay kalsooni ku qabi waayaan qiyaadada yare meesha taagan toynbi wuxuu leeyahay markaasaa waxaa bilaabma waxa lagu tilmaamo zamanu lidiraabaat wakhtigii fitankaa bilaaba iyo mujtamacu inuu isqabsada buu leeyahy waxaa bilaabma buu yidhi alfitan almaxalliya mashkilaadka lookalka iyo alxuruub aliqliimiya dagaallada sokeeya gudaha iyo waxaasoo dhan baa bilaaba oo mujtamaca gudihiisiiya waxaa kaloo bilaabma buu leeyahy bulshadaasi bulshooyinka kalena inay hungureeyaan oo atmaacda ama dadkii kale hungurigu ka haya duwalkii kale jaarkeeda ayaa kuwaasina iyana inay soo hungureeyaan oo isku dayaan inay wax ka soo boobaan waxa taasi ka sii ratibanta buu leeyahay kooxda yare madaxda ee markaasi la nacay ee aan iyadu hoggaanka si fiican u hayn karayn inay isku daydo iyana inay kursiga xejisato isla markaa waa inay isku daydaa buu leeyahay ikhfaaqaadkeedii guuldarradeedii oo dhan inay dadka ugu sharaxday inay guula tahay waxa laaliya waxay guuldarre geysato oo dhan isku daydaa buu leeyahay inay dadka ku qancin karto inay guul tahay waxaa taa ka bilaabma buu leeyahay dagaallo sokeeye iyo burbur ummaddaasi xadaarada iyo dadnimada ay leedahay way burburtaa buu leeyahy laakiin burburka ummaddu ay burburto qura kuma salaysnaatee waxa raaca buu leeyahay fasaadun yadubbu fii arwaaxi innaas buu leeyahy fasaad kaloo dadka bulshadii afraad ahaan u gala oo ummadda gebigeedaba waxa ku dhaca buu leeyahay isbeddel guneed oo ku saabsan dhaqankooda iyo dareemadooda iyo noloshooda dabeetana waxaa soo baxa buu yidhi ummad fawdawiya ummad aan nidaamka u hoggaansanaanin ummad akhlaaq iyo caadaad xun la soo baxda ummad burburku uu sal ka yahay adabkeeda iyo fankeeda iyo dhaqankeeduna uu burburkun ka warramo toynbi aragtidiisaasi rag badan oo qoraalla ah oo ku radinaya jira inaanay cumuumkeeda ahayn peter gayle iyo peter sorkin iyo kuwaasi bugaagtay qoreen ay ku naqdinayaan laakiin waxaan tusaalahan anugu isaga uga soo qaatay waxaad mooddaa inuu ugu dhadhow yahay
haddii ay jirto una cayinaad example loo qaadan karaa kuwa ka warramaya inay yihiin cayinada Soomaaliyeed ama mid tusaale saxa u noqon karta bulshada Soomaaliyeed iyo waxa ku dhacay Tombi kitaabkiisa wuxuu qoray waa hore maaha Soomaalida burburkeedii muu qorin ee waa hore ka horreeyay dhowr iyo afartanadii buu qoran rajaynaya waxaan leenahay marka haddii dadka hoggaanka ummadda u haya iyagoo ay weecsamaan bulshaduna kalsoonidoodu ay lunto isla markaas iyagoo ay ku adkaystaan meesha inay sii wadaan bulshaduna kalsoonida kuwaas ay ka lunto siduu isagu ku tafsiirinaya uu leeyahay markaasi waxa bilaabma dagaalada sokeeya iyo dadku inuu isku jabo waxa aakhirka ka ratibma uun buu leeyayna inay dadku intay baaba'aan akhlaaqiyad cusub lala soo baxa buu leeyahay si kale haddaanu tilmaamo burbur kasta ummad ku dhaca wuxuu yeeshaa burbur siyaasiya mid maamul mid dhaqaale mid akhlaaqeed mid caqiido mid ijtimaaciya mid walbana waxaa ka ratibma waxyaabo badan oo negatifisa مثلا haddaan tusaale u qaadanno qur'aanku masaa'ilka uu tilmaamayo alqadiya siyaasiya مثلا qur'aanku wuxuu tilmaamayaa saacati suquut ummadda burburkeedu wakhtiyadu bilaabmay inay ka mid tahay markay mas'uuliyadda u qabtaan ummadda xafna min almutrafiin ama koox yar oo nimcaysata oo fasaqa ah oo dhaalimiina amase mujrimiina iyo qaacida saakina bulsho hurudda oo aan haba yaraatee joojin karin fasaadka kooxdaa yari waddo hadday labadaas shay is helaan ummaddaasi way halaagsantaa natiijaduna waxay noqotaa un burbur walidaalika baa ilaahay qur-aanka wuxuu ku leeyahy waidaa aradnaa an nuhlika qarya amarna mutrafiiha fafasaquu fiiha faxaqa calayha alqowl fadamarnaaha tadmiira baa ilaahay haddaan rabna baa alla leeyahy subxaana wa tacala inaynu dad ummadda halaagno kuwa amarka u haya ee mutrafiinta ahbaa fisqiga bilaaba iyo ummadda burburkeeda qaacidaduna saakit bay noqotaa qaacida saakina qaacido aan bulsho weyn aan dareen badan lahayn amase dhaqdhaqaaq badan lahayn amase dulmiga iyadu taageeraysa oo aan oggolayn inay dulmiga ka hor tagto amase joojiso dabeetana ilaahay wuxuu idhi faxaqa calayha alqowl qowlka allah ku dul xaqiiqooba oo waa maxay fadamarnaaha tadmiira baa ilaahay leeyahy waanu duminnaa taa amase waanu baabi'innaa wakadalika jacalnaa fii kulli qaryatin akaabira mujrimiiha liyamkuruu fiiha kooxdaa yara duqaadda ahi ee kobocday hadday xagga sare fuusho bulshaduna ay kuwa hurudda noqoto weliba bulshadu ay noqoto mid ay kula dhaqmaan qaacidada macruufka ah ee ay ku dhaqanto dictator kastoo dunida soo mara waxaa maqashaan maalahan markaa siyaasaadka laga warramayo iyadoo la leeyahy ingiriiska iyo mustacmaraadkiisa iyo wixiisii wuxuu ku shaqaysan jiray waxa la yidhaahdo divide and rule qayb iyo xukun laakiin ma aha qaacida uu ibtikaaray ingiriisku waa qaacida fircawniya waa qaacida qur-aanku uu tilmaamayo qur-aanku wuxuu tilmaamayaa ina fircawna calaa fi lard ina fircawn calaa fi lardi baa ilaahay yidhi fircoon dhulka korkiisu ku kibro waa qooqay waa akbar dictator baynu odhan karnaa dunida soo mara waayo dunida dee waa dictatorkii ummad dhan ku xukumay inaanay rag dhalin nin dawlad ka madaxa oo qayb dadkiisa ka mida ku xukumay inaanu rag dhalin wixii ragga in laga laayo dumarkana laga addoonsado waa fircoon iyo qaab maamulkiisii ilaahay wuxuu ku tilmaamayaa ina fircawna calaa fi lard culuwigan fircoon xagguu ka yimi وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم با إلهي بلشدي سيبو وحكر دقاي با إلهي الشيع كوحة بلشدي سيبو كوحة وسمي دبتنا كلبا كوحهم بو استدعاف صدق دادوينه مركي داد سوچ يدي مركي داد ظلم النعبي مركي داد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يمن يجي markay dad aqbalaya yihiin aljihaad walijtihaad ummaddu ma weecsanto xafnada yar ama kooxda yare wax maamushaanayadaa dhacday ummaddu ma dunto laakiin ummaddu markay tahay
umma shiyaca kooxa marka laga dhigo kala dana'a kala aragtiyaa kala noocyaa ee wuxdadooda iyo midnimadoodu lunto ee kooxana muqarrabiin laga dhigo kooxana la duleeyo waayo saxaradii markay lahayn fircoon baanu ka hortegaynaa maxay doonayeen maxaanu leenahay bay yidhahdeen wuxuu idhi muqarrabiintaa ku jirta haddaa fircoon ka guulaysataan buu yidhi kooxda la soo dhawaynayaa ku jirta laakiin reer banu israa'iil muxuu ku xukumay iyaga waxa ilaahay leeyahy yastadcifu taa'ifatan minhum yudabbixu abnaa'ahum wa yastaxyi nisaa'ahum yacni bulshadiibu wuxuu ka dhigay kooxo sultada lagu soo dhoweeyo iyo kooxo laga fogeeyo waxa ka ratibmay markaasi inay bulshadu dunto intii ilaahay uu nebiga u soo diro quri inay ka badbaado